soo jeedinayaa in aan ka codsanaynaa inay xildhibaanadu yimaadaan si hawshiina noogu qabsoonto. waxaan kaloo ciidamada amniga ka codsanaynaa inay dariiqyada sahlaan oo xildhibaanada socda iyo baabuurtooda loo sahlo inay soo gaaraan teendhada. oo dad badan baan maqalnay jidka laga celiyey. waa jidadku hadda waa la furay baa la yidhi, waana codsannay ha loo soo fududeeyo xildhibaanada gudanaya waajibaadkooda. waa mahadsantihiin inta maqlaysa iyo inta kaleba. waa ka sidaasaa xaajadu ku socotaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. raxiim sida uu guddoomiyaha ku-meel gaarka ee golaha shacabka uu sheegay, waxaan joognaa hoolkii doorashada ay ka dhici lahayd. waxaan rabaa inaan halkan idinkaga sheego in xildhibaanada intooda badan ay hadda soo galgalayaan. inta dhimanna waxaan leenahay ha yimaadaano. sida qorshaha ahaa oo aan schedulekii aan degsanay weli waa ku soconnaa. doorashada waa dhacaysaa maanta. xildhibaanadana waxaan hay-adaha amniga ka codsanaynaa inay u fududeeyaan inay soo gaaraan meesha doorashada ay ka dhacayso si aan doorashadii u dardargelino. waa ognahay wakhtigii xoogaa yaroo dibudhac saacado ayaa jiro, laakiin waxaan rabnaa doorashada ilaa yacni afurkana maanta xildhibaanada caawa inta halkan ayay ku leeyihiin haddii ay dhacdo in doorashada lagu daaho. wixii kaleeto oo ta'siilaada oo aan fududayn karnana waa fududaynaynaa. waxaana naga go-an in doorashadu ay maanta halkan ka qabsanto insha allahu tacaala. xildhibaanadana ay soo galaan si uusan wakhtigu dib u dhac noogu imaanin, oo aan isla maantaba ilaa galabta ilaa iyo cawada ugu dambayn aan doorashadan u soo gabagabayno oo ay noqoto golahu inuu yeesho